asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkan waa janalka mucjisa team. saaxiib waxaan ku leeyahay muuqaalkan sheer gore laakna sii sabscribe-kana hanaga ilaawin si aad ula socoto muuqaalada kan xiga insha allah. marka aan la carqaladayn lo dibadani waxa ay halkii marba cabtaa 8 litir oo biyo ah. waxa ay ogsoon tahay in biyaha ay cabbayso hoostooda uu ku jiro xayawaan halis ku ah nafteeda. kooxdan lo dibadeeda ah waxaa ku dhaca argagax badan marka yaxaasku ku qaado weerar. qaar badan oo ka mid ah weligood ma aysan arag yaxaas. marka uu weerarku qabsado ee ay didaan waxa ay dusha ka eegaan waxa ku dhacay kuwa yaxaaska gacantiisa galay. olid haraad dagaal iyo taab ma yeelayno waa iska celiya. kani waa weerarkii ugu horreeyey ee kooxdan qabsaday. webigan waxaa ku nool 300 oo yaxaas. bahashani siyaabo kala duwan ayay kaga baxsataa yaxaaska iyo xayawaanada kale ee ugaadhsada. muuqaalkan waxaa ka muuqata xataa in lo'da waaweyn oo ka mid ah kooxdani aanay ogeyn khatarta ay ku sugan yihiin. sababtuna wax kale maaha ee haraadkan daran ee haya ayaa ilowsiiyey khatarta biyaha ku hoos jirta. haddaba yaxaaska ayaa ah mid adeegsada maqalka dhagihiisa oo aad u fiican, waana xayawaan maskax badan oo qaada weeraro aan laga baxsan. waxa uu qaadaa weeraro gaadmo ah oo isdaba joog ah ilaa uu guulaysto. haddaba yaxaaskani uma cuntamaysa maanta inuu marnaba qadadiisa ka dhex waayo meeshan. inkasta oo ay halis weyn galeen waxaa weerarkan ka badbaaday hooyo iyo ilmaheedii yaraa oo yaxaaska u gacan geli gaadhay. waxa laakiin aanu nasiibku caawin mid ka mid ah looda oo si buuxda gacanta loogu dhigay. daayeerka ayaa isagu madadaale ahaan u daawanaya halganka ka dhex socda yaxaaskan iyo neefkan looda ah ee la qabtay. waxaa ku soo biiray yaxaasyo kale oo raba inay qaybtooda ka cunaan hilibkan gacantooda soo galay. waxaa goobtii isu badashay meel dhiig iyo dhagor ka buuxdo, waxaana muuqata in yaxaasyo qamaamsani ay cadhada iskula dhacayaan.